salaamullaahi calaykum. soo dhawaada saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalka Cabdixakiin Axmed. qof walba inaga mid ahi wuxuu maanta jecel yahay inuu noqdo qof guuleysta, balse waxaynu in badan aynu arkaynaa dad badan kuwaasoo dejistay qorshe iyo jadwal oo ay doonayaan inay guul ku gaaraan, laakiinse aanan ka dhabaynin qorshahoodii iyo jadwalkoodii ay dejisteen caajis awgiisa. haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 5 shay haddii aad ka adkaato waxaad ka mid noqon doontaa kuwa ku guuleysta qorshe kasta oo aad dejisteen. waxaan kaa codsanayaa daawaday inaad muuqaalka like saarto una sii sharagarayso saaxiibadaada qiimaha badan si ay iyaguna wax uga faa'iidaan. mahadsanid. midda koowaad waxay tahay hurdada badan. hurdada badan waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka dhaafsiin kara fursadaha aadka u qaaliga ah ee nolosha. qofka doonaya inuu meel sare gaaro waxaa in badan laga doonayaa soo jeed fara badan, waayo qof walba maanta guuleystay guushaas ma uusan ku gaarin raaxo iyo baashaal, balse waa mid u dhawar adeega guushaasi. nafsadaada ka adkaaw oo ha barin inaad in badan sariirta dul fuusho. qofka caafimaadka qaba uma baahna inuu seexdo waqti badan, taas beddelkeeda waxaa laga yaabaa inuu sariirta seexdo ama uu soo tooso. hurdada badan waxay kicin kartaa dareenka kala duwan ee jirka, ama waxay sii xumeyn kartaa xanuunka horeba kuu hayay adiga. imaam al-Ghazali Allah u naxariistay wuxuu yidhi, hurdada waa geeri, haddii la badiyo waxay soo gaabinaysaa cimriga. sidoo kale al-imaam ibnul qayyim Allah u naxariistay wuxuu yidhi, hurdada xad-dhaafka ahi waxay dishaa wadnaha, culays bay u keentaa jirka, waqtina way lumisaa, waxayna dhalisaa hagar la'aan iyo caajisnimo badan. 4 shay oo jirka uu ku boko waa hadalka badan, hurdo badan, cunto badan iyo galmo badan. waayo inta badan aad sariirta jiftaa waa inta badan ay facaaga ay guul sii gaarayaan. haddaba adiga maxaa kuu diidaya inaad ka mid noqotid kuwa guulaystay? qodobka labaad wuxuu yahay dib u dhigidda. dib u dhigidda waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee dad badan inay guul gaaraan u diiday. waayo qofku wuxuu isdhahayaa bari ayaad qaban doontaa hawshan maanta kuu taala, xoogaa hadeertaan waan yara caajisanahay. maalinka xiga markii la gaarana marmarsiyo waayi maayo oo nafsadiisa ugu marmarsiyoonaya, isla maalinkaana waxba ma qabanayo, halka ayuu uga tegayaa. maalin walba waxay kuu sii dhiibaysaa maalin kale. haddaba nafsadaada ha barin caadada dib u dhigidda. howl walba kuu taala isla markaasi qabo. dib u dhaca inta badan waxay sabab u tahay abaabul la'aan ama waqti la'aan. dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin in caadadan aysan la xiriirin wax cudur ah. sidaa darteeda dadka soo daahay waa in ay bartaan ixtiraamka balamaha. run ahaantii ku celcelinta daahitaanka balamaha waxay dhibaato ku abuuri kartaa nolosha qofka aan xal u heli karin caadadan. bedel noloshaada maanta oo ha ku khamaarin mustaqbalkaaga. hadda u dhaqan si geesinimo leh adigoo daahin. qodobka 3aad, cabsida. cabsida waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badan ee dad badan u diiday inay hore u socdaan, ayna la tartamaan asaagooda. qofka daciifka ah waa midka ka fikiraya oo ka walwalaya waxa ku dhici doono, kana cabsanaya dadka waxay dhihi doonaan hadduu arrintan sameeyo. qofka daciifka ah waa midka aanan ku kalsoonayn naftiisa iyo kartidiisa. waa qof qalbiga ka dilan oo ka dhintay. waa qof u xabisan qaacidada ah dadka maxay ku dhihi doonaan. haddaba walaal, arrin ayaan kuu hubaa aniga. waxaad ogaataa dadka wax wanaagsan haddaad samayso ama haddaad wax xun samayso ma aha kuwa faraha kaa qaadaya adiga. dadka hadalkooda ma dhammaado, hana isku dayin inaad qanciso dadka oo dhan. inta wanaagsan way ku taageeri doonaan ayagoo aanan ka codsan adiga. wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay sameey, hana ka cabsanin. rabbigaaga ku kalsoonow. dareenka cabsida ayaa ah dareenka ugu awoodda badan dhammaan, kana xoog badan xitaa dareenka badbaadada. cabsida dadka iyo hadalkooda waa arrin aanu qofka muslimka ah dan ka lahayn, kana reebin inuu sameeyo waxa eebe ugu dhowaanaya iyo waxa ka fogeynaya cadhada eebe. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadiisa wuxuu ku yidhi, falaa takhshaw nnaasa wakhshawni. dadka ha ka cabsanina ee aniga iga cabsada. ummaduhu waxay dagaal u galaan 3 arrimood midkooda: sharaf, cabsi iyo dan. cabsida waa la taliyaha ugu xun ee qofka bini'aadamka. qodobka 4aad wuxuu yahay xanaaqa. qof aanan maanta xanaaqin ma jiro, laakiinse ha ka xanaaqin hadalla dadka aanan jeclayn horumarkaaga iyo guushaada. ha ka xanaaqin kuwa wax kaa sheegaya, ku xamanaya, ku liidaya, kugu jeesjeesaya. dheg jalaqna ha u siinin waxa ay gadaashaada ka dhahayaan. ha kuu noqoto hadalladooda dhiirigelin iyo wax hore kuu sii socodsiiya, waayo dhammaantooda waa taageerayaashaada. imaam ibnu qutayba wuxuu yidhi, Allah u naxariistee, caradu waa jahliga riyada. waxaana la dhihi jiray iska jir kibirka carada, waayo waxay kuu horseedaysaa
dulinimo raaligelineed. imaam ibnu xibbaan wuxuu yidhi allah u naxariistee, xawliga caradu waa sifada doqomada, si la mid ah ka fogaanshaheeduna waxay la mid tahay kuwa caqliga leh. xawliga caradana waxaa ugu daran kuwa miyirka qaba. qodobka ugu dambeeya waa wahsiga. in aad ka wahsato oo aad ka cagajido howl adiga kuu taala waxay ka mid tahay waxyaabaha gadaal kuu sii dhigaya adiga nafsad ahaantaada, aadna gaari karin asaagaaga halkay marayaan. nasashadu hadday dheeraato waxay dhalisaa caajisnimo, dadaalna haddii ay dhaafto xadkeeda waxay abuurtaa kacdoon. haddii aad rabto inaad wax ku istaagto, jooji caajisnimada, jooji inaad marmarsiyo samayso, sidoo kale jooji sugitaanka wakhtiga saxda ah. maskaxda caajiska ahi waxay shaqo u tahay shaytaanka. abuu xaatim wuxuu yidhi allah u naxariistee, sababta guusha lagu gaaro waa dib u dhaca oo laga tago, sababtuna waa caajisnimo. maxaa yeelay caajisnimadu waa cadowga firfircoonida iyo ciqaabta xoog sheegashada. dib u dhac iyo karti la'aanna waxay keentaa halaag. waa walaalkiina Daxkiin Axmed, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.